عمها تتكيقو كنت دبعت لغنيرو أنك عقراني عيدنا هضنكا موصلك عنايو بيرها مصرعنا عمها تتكيقو كنت دبعت لغنيرو أنك عقراني عيدنا هضنكا موصلك عنايو بيرها مصرعنا maanta waxaan joognaa mid ka mid ah beeraha waaweyn magaalada Burco oo ay maalgelisay ama ay ka hirgelisay dawladda magaalada Burco mid ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ka soo jeeda oo ka soo noqotay wadanka dibadiisa waa Iimaan Xasan Maxamed oo in badan wadanka dibadiisa ku maqnayd ayaa waxay garatay gobolkeedii Togdheer inay maalgeliso ay ka hirgeliso beertan weyn oo ka mid ah beeraha waaweyn gobolka oo runtii toddobaadkiiba dhowr jeer ka soo goodo khudaar kala duwan oo aad u fara badan oo marka kafeeyba meherado badan oo magaalada Burco ku yaala baahiyahoodii khudaar kala duwan weeye marka Iimaan baan nimkana bal u gudagali doona soo dhaw Iimaan soo dhawaaydo marka hore horta waa mahadsantihiin bahadiina saxaafadda ay soo booqday maanta iigu yimi beertaydii gurigeygii aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mar labaadkana dee waad aragtaan meeshaan nimi ee aanu joogno dee alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh magaaladaydii baan ku soo noqday Burcaan joogaa beertan waxaan markii hore ku tala jiray iminkana ku tala jiraa insha Allah bidmillaahi kariin inaan halkan ay noqoto retirement house-kaygii haddii Ilaahay ka dhigo aan halkan dego ما شاء الله وهرب الواحد أنا يبلشده نوفا فايسة إيمان حيابا كوك اللي في إن برعك صار نقطة والدوين والدبادات أديكوا كنا لا أد برعت ما أد دولت كبرعت دكتو أد بيرس دن قرح بدن أد مال بدن جلسة بالنوفا فايسة إدو حويان ومركو وهريسة وحيسوع عليي ودن كان يغير بين كتجي أو دليرة عادو يرى مركي أنتجينا run ahaantii ma ahayn choice-kayga sida imka dhalinyarada tahriibtoo kale tahriibku maan tegin inaan tagana diyaar uma ahayn laakiin duruufihii waaga wadanka ka jiray uun baan kaga tagay in badan markii aan maqnaana waxa dhacday in maxay ahayd qurbihii uun aan soo nacay dareenka ah inaanad meesha lahayn adigu ay tahay maxay ahayd wadankaagii aanu ahayna dareenkaasina wuu jiray marka anigoo hiloobay wadankaygii ayaan jeclaystay inaan ku soo noqdo wadankaygii Somaliland markii aan soo noqdayna waxaan gaar u sii jeclaystay inaan tago magaaladeydii aan ku dhashay ku barbaaray sidaasaan ku imi markii aan imi waan indheeyay waxaan eegay baahi waxyaabaha loo baahan yahay ee wadanka maaragtay ku yar maxay ahayd aan ganacsataduna had iyo jeeraale hoos u eegin rageena ganacsatada ee lacagta leh ganacsatadu rag bay u badan yihiin dumar haday jiraan way yar yihiin haday jiraan joobkooda kulleen ragumba ka jeebroon marka waxaan arkay inaanay danaynin beeraha markaas ayaan waxaan go'aansaday intii awoodaya beer awoodaya inaan aasaaso marka iyadoo research baan sameeyay dhirta ka baxda meelaha saxaraha desertka ku haboon dalkeena dabeedna dhirtii baan raadiyay dhirtii intii badnayd alxamdulillah waan helay dhirtii baan marka halkaasaan beerta ka bilaabay marka imika waxay jirtaa hadda 3 sano bilaa dheer
alxamdulilah dhirta ku jirtaana way badan tahay baahidii aan u aasaasayna run ahaantii way jirtaa ilaa iminkadaa xitaa way u baahan tahay Burco inay beeraha kordhiso oo maxay ahaytoy la fahmo beeraha marka alxamdulilah baahi badanna waan ku fargareeyay oo meherado badan ayaa iminka khudradaydu tagtaa shaqo abuurna waan sameeyay oo 2 qof oo rasmiina way ka shaqeeyaan bishiina 2 qof oo sessional worker aan u yeero oo ka shaqeeya ayaa jira marka de halkaana shaqo abuur baa ka timi alxamdulilah waaye waxaad sheegtay in dhir badan ay aad ku beertay sidaan anigu wendhayga ku arkayo dhir badan oo aan ka bixin ama khudaaro badan oo kala duwan burcaanan ku arag ayaa halkan ka baxa bal noocyada kala duwan ee ka beeran bal noo yara faahfaahiyo meelaha kala duwan aad ka waxa ka baxa oo had iyo jeeraale dadkeenu ay ku naxaan markay beertayda yimaadaan yidhaahdaan oo ma burcay ka baxday muuska waxa kaloo ka baxa cambalafka oo had iyo jeeraale in la oran jiray southka mooyaane kama baxo north Soomaaliya marka muuska ka baxa cambalafka ka baxa cambashooga ka baxa arfakaadada ka baxda saytuunka ka baxa oo soo go'a liin dhanaanta ka baxda liin macaanta ka baxda babayguna si toosaab uga baxa khudraddan hoose ee dheriga iyadu waa iska caadiyo wixii familiga iyo xaafadda baan u beeranaa oo aad iyadu uma focus gareeyo laakiin geedweyntaan jecelahay inaan aad u beero bal maxaad isleedahay imika inaad ku tala jirtaa Soomaaliya sii ballaadhisid waxyaabo kale badan aad ku soo kordhiso waxaan jecelahay inaan xagga maaragtay waxaan jeclaa markii hore inaan beero digaaga marka mashruuca digaaga laftiisa aan soo saarno ukunta marka taasi maskaxdeeda wali way ku jirtaa beer kale oo leeyahay caynaba ayaa jirta waaye bal maxaad ugu baaqanayd qurba joogta iyo sidoo kale ganacsatada ka soo jeeda gobolka Togdheer ee aaminsan Burco iyo duleedkeeda ama gobolkaba inaan beero sidan wax laga beeri karin aan waxba ka soo goy karin waxaan ugu baaqi lahaa marka ugu horeysata waan kala qaadayaa horta ganacsatadu waxay aad u daneeyaan galbeedka Soomaaliland aad bay u daneeyaan ganacsigooda iyo investmentkooduna xaggaas u badan yahay laakiin anigu aragti gaara baan ii muuqata Burco inay tahay xundurta dadka af Soomaaliga ku hadla inay xundurtooda tahay magaaladani mustaqbalka dhowna ay Burco ka duwanaan doonto gobolada kale oo dhan ayaa ii muuqata waxaan oran lahaa dadkeenu waxay sameeyaan idea makers maaha waa idea stealers waxa laga yaabaa in nisraado ganacsi gal la iman maayo fikir gaara wuxuu la imanayaa hadduu arko maqaaxi soconaysa inuu isaguna maqaaxi ku daydo oo maqaaxi ku barbar qabto restaurant soconaya isna restaurant sameeyo marka walaa anigu waxaan oran lahaa laba halba waa mid waxaan oran lahaa horta beeraha la kordhiyo magaalada Burco waxay leedahay oo qani ku tahay biyaha alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxa jira taag ganacsatooyin waaweyn oo leh beero aad u waaweyn oo 100 hektar 100 hektar ninka haysta de wuxuu soo saari karaa saliid wadanka oo dhan ka faa'iideysa wuxuu soo saari karaa imika waqtigan xaadirka haruurkii uu ka go'an yahay magaalada dadkii maanta haruurku ka go'an lahaana manhineedo haruurku waa geed abaareed ilaa galbeed ilaa iyo bari waxa lagu leeyahay haruur lama hayo marka waxaan ku boorin lahaa dadka dhulka weyn haysta inay galeyda beeraan inay digirta beeraan inay haruurka beeraan in lagaga maarmo wixii Itoobiya inooga imanaya oo inaga ina laga iibsado basasha iyo baradhada labadaasi toos waxay uga yimaadaan Itoobiya uma baahnayn inay ka yimaadaan ciidana waa qurux badan tahay waxa dunida ku jiro dhan imika waa basal marka waxa aad u wanaagsan oo ku boorin lahaa ganacsatada laba arrimood
beeraha iyo warshadaha yaryar inay xooga saaraan oo warshadaha yaryar ee imka recycle-ka oo kale caagadaha inta biyaha laga cabi marka labadaaba ganacsatada waan ugu baaqi lahaa waxaan kale ugu baaqi lahaa magaaladani waa magaalo aad iyo aad u leh maxay haytoy u muuqata inay tahay magaalooyinka kale ka duwane inay Burco soo noqdaan oo gaar ahaan ragga u dhashay ay maalgeliyaan magaalada qurba joogta waxaan oran lahaa noloshii aynu halkaa ku jirnay waa aragtaan iminkana dunidii ma indhawacana way ka sii dartay marka iska soo diyaar garooba dhulku intaanu qaali garoobin dhulka iibsada waan ogahay intooda badan dhul ma laha inta lihina inay wax ka qabsadaan inta aan lahaynina inay dhul iibsadaan qof walba gobolkiisii uu ku soo noqdo oo wax ka qabto oo wax ku soo kordhiyo way gabagabadii bal beertan aan joogna aad bay qurux badan tahay dhul weyn oo baaxad weyn oo ku fadhida bal adiga laftaadu soo toddobaadkii oo mar ama dhowr jeer iyo habeenkii uma soo nasasho tagtid oo faa'iido kuma la aad iyo aad waxaan jecelahay haddaan maalin ka maqnaado maalinta labaad inaan imaado markaan imaado ma jecelina hore uga tago waxaan dareemaa raaxo dhirtaydaasaan marba mid iska hoos fadhiistaa marba mid baan baaqbaaqaa mid baan quraabka ka gurtaa gudaha dambaan galaayo waxii quraabahoo dhan hadduu yahay rumaan hadduu yahay saytuun hadduu yahay dheemaal carabi hadduu quraabkaygaasaan iska cunaa shamaamkii baa ku yaala xabxabkii baa ku yaala marka I feel good edo qolkaa yar baan leeyahay waxaa ii yaala fadhi qaac yar iyo sariirtiisii waan iskaga nastaa shaawarkaygii baa iigu yaala alxamdulilah rabbilcaalamiin run ahaantii habeenkii solar baa xidhan oo ma baqano aqalka solar baa ku yaala inkastoo meeshuu yaraa tahay koonaha magaalada alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan anugu dareensanahay dadka ugu shaqada badan leh ama ugu tacabka badan leh inay qurba joogta yihiin hadday yimaadaana nolosha ay xaggaa kaga nool yihiin boqolkiiba 80 nololka qurux badan inay kaga noolaan karaan halkan iyagaana baaqan maanta u dirayaa waayo waan ka naxayaa waan ogahay waxyaabaha ay ku sugan yihiin maanta aad baad mahadsantahay